rasmireys oo ah fanaanad ku nool magaalada Nairobi ayaa waxay ka mid noqotay dadka ehelkooda ka soo gaareen qaraxii maanta ka dhacay agagaarka isgoyska Soobe. Rasmireys oo soo dhigtay muuqaal barteeda TikTok-ga ayaa waxay sheegtay in hooyadeed ay ku dhaawacantay qaraxii maanta ka dhacay Muqdisho, dhanka kale ay ku dhinteen mid ka mid ah saaxiibteed iyo hooyadii dhashay. hadaladii Rasmireys waxaa ka mid ahaa: السلام عليكم صحاب hooyaday qaraxaad soo bakdhacay dhaawac ku noqotay police igu soo duceeyeen ilaahay caafimaadka ka siiyo dhammaan asxaabteedana way ku geeriyoodeen iyo muslimiin aad fara badan waxa ku geeriyood hooyaday saaxiibteed oo aad jeclaa xaawashiina dhahay waxa kale ku geeriyood hooyaday saaxiibteed iyo gabadheeda oo aad jeclaa oo iqrar la وساكا ودبس إلى هالناس والله راح والباحة حمر وقبها وتكسجر إقرأ ما يقير إذا هذا ما يكبت وراي بليز يقصد ويدد كمان شكو كيري وذي إني لا ونحرسته إذا ينتداو عنه إلا يعاف ما تيسير سرعة فاهم أنا كنت حمر كتيرا. rasmi ayaa waxay shacabka Soomaaliyeed ka codsatay in ay u soo duceeyaan in hooyadeed Ilaahay caafimaad taam siiyo. sidoo kale muuqaalada naxdinta kale oo maanta baraha bulshada la wareejinayo ayaa waxay tahay gabar dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Iqra ayaa maanta waxay ku geeriyooday qaraxii labaad oo ka dhacay magaalada Muqdisho. qaraxii koowaad ayaa waxaa ku dhintay hooyadeed, balse ayadoo isdhehaysa ka war doon hooyo ayaa waxaa haleelay qaraxii labaad. maanta cawada baraha bulshada ayada haysto. waxaan halkan dhammaan ugu tacsiyeenayaa ummadda Soomaaliyeed ee maanta ku geeriyooday qaraxii ka dhacay isgoyska Soobe. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. kuwii ku dhaawacmay waxaan dhahayaa Ilaahay caafimaad taam siiyo. muuqaalkeen halkaas ku yahay waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalka. daawad waxaan ka codsanayaa inaad u duceysid intii ku dhaawacmay qaraxii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. qaraxan ayaa wuxuu la mid yahay qaraxii 5 sano ka hor sano kale u dhacay isgoyska Soobe, qaraxaas oo ku dhinteen in ka badan 600 oo qof oo Soomaali ah. balse qaraxan ayaa waxaa la sheegayaa in uu ka liidan qaraxii hore, dhaawaca uu hadda ka badan yahay in ka badan 500 oo ruux. waxaan ka codsanayaa hadda ku nooshaa magaalada Muqdisho in aad isbitaalada si aad dhiig u bixisid si walaalka ku badbaado. waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalka.